kulan wacan daawadayaal waa muuse xoshow waxaad ku soo dhawaataan wararka la xiriira suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii wargeysyadu ay ka qoreen waxaana ku jiri doona oon idinkugu hayaa Manchester United oo si rasmi ah suuqa u dhigtay Marcus Rashford, Mohamed Salah oo kusii dhowaanaya inuu qandaraaska u kordhiyo Liverpool, Southampton waxay doonaysaa Sheffield Wednesday tababaraheeda si uu shaqada tababarnimo ee kooxdan ula wareego. Bayern Munich, Real Madrid iyo Manchester City oo ku dagaalamaya xidiqadka dhexe uga ciyaara kooxda Bayern Leverkusen iyo warar kale ayaan idinkugu hayaa daawadayaal. Inoo subscribe gareeya qaybteena YouTube oo dabcan aan idinkugu soo gudbin doono wararkan iyo kuwa kale oo xiise leh oo dhinaca ciyaaraha ah. Aynu ku bilown. Kooxda Manchester United ayaa suuqa dhigtay ciyaaryahankeeda Marcus Rashford oo 27 jir ah, waxaana ay sheegtay bishii January in qiimo dhimis aad ah ay ku sameynayso iska iibinta laacibka waddanka Ingiriiska kasoo jeeda. Wargeyska The Guardian ayaa wariyay Liverpool iyo xulka Masar weeraryahankooda Mohamed Salah oo 32 jir ah ayaa kusii dhowaanaya inuu qandaraaska u kordhiyo kooxda Liverpool sida kooxdu ay rajeynayso. Wargeyska Marca ee waddanka Spain ayaa wariyay Southampton waxay tixgelinaysaa in ay la wareegto tababaraha Sheffield Wednesday ee 35 sano jirka Jarmalkana kasoo jeeda Danny Rose tan iyo markii ay shaqada ka erisay Russell Martin tababarihii kooxdaas. Southampton ayaa wargeyska The Times waxa uu leeyahay aad baa loogu dhoweynayaa in ay la soo saxiixato tababaraha kooxda Sheffield Wednesday. Bayern Munich, Real Madrid iyo Manchester City waxa ay ku dagaalamayaan la saxiixashada 21 jir Jarmalka kasoo jeeda Bayern Leverkusen khadka dhexe uga ciyaara Florian Wirtz. Sida wararku ay leeyihiin waxa uu qandaraaska u kordhinayaa tan iyo 2028 kooxda reer Jarman. Sky Germany ayaa sidaas wariyay. England xidiga garabka uga ciyaara ee Raheem Sterling oo 30 jir ah waxa uu qorsheynayaa in uu iska sii joogo kooxda Gunners oo aanu soo gaabin heshiiska amaahda ee uu kula joogo kooxda Arsenal haddii xataa aanu haysan daqiiqado dhammaystiran oo kooxda uu ugu ciyaaro. Standard ayaa sidaas isagu warinaya. Arsenal difaaceeda Jacob Kiwior oo 24 sano jir ah oo isaga tegaya kooxda Gunners bishii January waxaana aad u xiiseynaysa kooxda Napoli ee waddanka Talyaaniga. Poland xidiga u dhashay ayaana ku biiri kara Napoli sida uu warinayo El Mattino oo Talyaaniga ka soo baxa. Manchester United waxa ay wakiillo u dirtay in ay soo daawadaan xidiga Greega iyo kooxda Olympiacos weerarka uga ciyaara ee la yiraahdo Charalambos Costulas kaasoo 17 sano jir ah. Wargeyska The Sun ayaa sidaas isna warinaya. Kooxda Brighton ayaa laga soo diiday 20.7 milyan oo yabaha oo ay gaarsiisay ciyaaryahanka 18 jirka ah ee lagu magacaabo Victor Riaz oo ka tirsan kooxda Palmeiras. Palmeiras waxay sheegtay inay wadahadal kala furayso ciyaaryahankeeda difaaca ka ciyaara mustaqbalka dhow haddii xataa uu kooxda sii joogayo, balse haddii uu tegayo waxa ay go'aansan doontaa marka ay kooxdu ama qaado ama kasoo harto koobka kooxaha ee caalamiga Club World Cup. iyo SBM Brazil ayaa sidaas wariyay. Arsenal waxa ay usii dhowaanaysaa in ay beegsato xidiga Sevilla khadka dhexe uga ciyaara ee Lucien Agüero oo 22 jir ah kaasoo bedel u noqon kara 31 sano jirka khadka dhexe ee waddanka Ghana Thomas Partey. Football Transfers ayaa sidaas isagu wariyay. Faransiiska iyo Al Ittihad xidiga weerarka uga ciyaara Karim Benzema oo 36 jir ah waxa uu tixgelinayaa in uu goor horeba ka fariisto ciyaaraha 2024-2025 dabayaaqadiisa ayaanu ciyaaraha ka bixi karaa sida wargeyska Relevo ee waddanka Spain uu warinayo. Spain xidigoodii hore ee khadka dhexe Cesc Fabregas oo haddana hogaamiye kooxda Como ee waddanka Talyaaniga ayaa waxa uu ugu yabahay ciyaaryahankii hore ee Ingiriiska Dele Alli oo 28 sano jir ah fursad uu kula tababarto kooxdiisa tan iyo January marka ay bilaabato. Waxa uu doonayaa inuu dib ugu soo laabto kubadda cagta mar haddii aanu muddo dheer ciyaarin. ESPN ayaa wariyay Jarmalka goolayahooda Manuel Neuer oo 38 jir ah qandaraaska ayuu 1 sano u kordhinaya kooxda Bayern Munich sida uu warinayay Sky Germany. Isagaas ayaa ugu dambeeyay wararkii wargeysyada waan idinla socodsiinaya anoo ah Muuse Xoshow. inoo subscribe gareeya qaybta YouTube intiina hore noola joogtana sheerta iyo like-ta inoogu dhufta waanaad ku mahadsantihiin la socodkeen.